حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان وعن oo wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa meel waliba aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqayno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyay caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaadhigay qur'aanka iyo sunnaha. مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد. xalqadii ugu dambaysay ee barnaamijkan waxaan ku falanqaynay daawooyinka rabbaaniga ah iyo tawjiihaadka samaawiga ah oo haddii la yaqiinsado si sax ahna loo dhaqangeliyo noo ilaalinaya caafimaadkeenna, ka hortagna u noqon kara cudur kasta oo soo weerara qofka muslimka ah. waxaana soo gudbinay axaadiis iyo aayado sharaxaad waafi ah ka bixinaya arrintaas, culimmaduna si wanaagsan ay u iftiimiyeen. maadaama daawooyinka ay isugu jiraan qayb ka hortag ah iyo qayb ka dabatag ah, isla markaana aan soo gorfaynay qaybtii ka hortagga ahayd, waxaan allah idinkii xalqadan ku gudageli doonnaa daawooyinka ka dabatagga ah ee lagula tacaalo cudurrada marka ay soo ritaan bukaanka. وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات. si la mid ah kaalintii ay ku lahaayeen qaybta ka hortagga ayay ducada, tufta, adkaarta iyo sadaqada ay ku leeyihiin qaybta ka dabatagga ah, waana daawooyinka ugu badan ee waxtarka leh ee lagula tacaalo bukaannada, sida goordhow aan ogaan doonno. allahna wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الشيخ عبد الرحمن السعدي الله naxariistay wuxuu yidhi qur-aanku wuxuu kulansaday daaweynta iyo naxariista, balse taas qof waliba nasiib uma lahan, waana mid u gaar ah keliya mu'miniinta allah aaminsan ee rumaysan aayaadkiisa kuna camalfala. daalimiintase maadaama aysan rumaysnayn qur'aanka kuna camalfalin, uma soo kordhinayo wax aan ka ahayn hoog iyo khasaaro, sababtoo ah xujada ayaaba ku sii ogmaysa. daawada uu wato qur'aanku waa mid caam ah oo ay ku jiraan daawooyinka qulubta, shubahaadka, jahliga, afkaarta faasidka ah, inxiraafka iyo ujeedooyinka xunxun. waxaana ka mid ah cilmul yaqiinka oo ku horburburaya shubahaadka iyo jahliga
iyo weliba wacdiga iyo waanada lagula diriro shahawaadka baalmarsan amarka allaah wuxuuna sidoo kale daawo u yahay cudurrada ku dhaca jidhka sidaasi la mid ah raxmadda uu qur-aanku wato waxaa ka mid ah in haddii qofku uu la yimaado asbaabaha iyo wadiiqooyinka uu boorinayo uu helayo naxariis guul waarta iyo weliba ajar soo degdega iyo mid loo keediyo intaba qur'aanka iyo tufta waa daawo waxtar leh waase haddii shuruudaha lala yimaado si dhab ahna loo yaqiinsado sida uu inoo sharaxayo sheekh cusmaan dacwo shakina kuma jiro in qur'aanka oo laysku daweeyo inuu yahay wixii ka sugnaaday nebigeenna calayhi salaatu salaam oo min aruqa tufmada waana cilaaj naafica oo qofka wax taraya waana caafimaad dhammaystiran ilaahay qur'aan kariimka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waxaa dhahdaa nebi maxamedow huwa qur'aanku liladiina aamanuu dadka mu'miniinta wuxuu u leeyahay hudan hanuun wa shifaa iyo caafimaad qur'aanka dhammaantii waa caafimaad oo aayaddan soo socota sida ilaahay yidhi yaa ayuhannaasu qad jaa'adkum mawcidatu min rabbikum wardadow qad dhabahaan jaa'adkum waxaa idiin yimi mawcidatun min rabbikum waano ayaa idiin timi oo rabbigiin xaggiisa idinka timi wa shifaa'un baa idiin yimi caafimaad limaa fi sudur waxa laabta ku sugan wa hudan ayaa idiin yimi hanuun iyo waraxma naxariis wax u ah lilmu'miniinta waa qur'aanka weeye qur'aanku waa caafimaad dhammaystiran cudurrada oo dhan cudurrada qalbiga ku dhaca kuwa badanka jilka ku dhaca oo dhan qur'aanku caafimaad buu ka yahay wax walba adduunye iyo aakhiraba qur'aanku waa sidaas weeyaan marka waa inaynu ogaanaa oo qofka jiran inuu qur'aanka isku daweeyo oo lagu daweeyo qofka xanuunsan waa in qofka xanuunsan uu qur'aanka aaminsan yahay marka lagu akhrinayo markaasuu caafimaad ka helaya inuu aaminsan yahay hadduu la igu akhri bal isaga kee akhri daawa aan raadinayo daawadii oo markaa aanu ku kalsoonayn dee caafimaad kama helayo qofka qur'aanka wax ku daweynayana waa inuu aaminsan yahay qur'aanka caafimaad inuu leeyahay qofkana ilaahay caafimaad uu ku siinayo marka labadaas ictiqaad ay iswaafaqaan oo qofkii xanuunsanayey iyo kii daweynayey labaduba ay aaminsan yahay qur'aanka caafimaadnimadiisa yaa qur'aanka ilaahay uu tilmaamay oo uu yidhi haddii lagu soo dejin lahaa buuraha waaweyn way dillaaci lahaayeen arladuna way go'i lahayd marka ma jiro xanuun oo ka mid a xanuunada qalbiga ku dhaca ama jidhka ku dhaca ilaa qur'aanka kariimka dhexdiisa waddadii waxa ku sugan dalaalo inuu yahay kii cudurrada daweynayay iyo sababtiisiiba marka waxa weeyaan qofka ilaahay ku arsaaqo faham kitaabka ilaahay waa inuu aaminaa qur'aanka inuu yahay kalaamullah inuuna yahay caafimaad marka innagu meelo kaleynu aadaynaa oo waxa weeyaan qofka hadduu xanuunsado weliba waxaad arkaysaa haweenkeenna iyo dadka iyo in badan haddii war dadka muslimiinta ah ogaada daawadu waxay ku jirtaa wixii ilaahay daawo uu ku sheegay oo nebi maxamed daawo ku sheegay marka waa inaynu ogaanaa waa qur'aankii waan dadka ku akhrinayno oo marka daawo aynu ka helayno marka daawadu meel kale kuma jirto waxay ku jirtaa waa ilaahay diinkiisa waa inaan ku kalsoonaanaa oo isku daweynaa al-imaam ibnulqayim raximahullah ayaa si xeel dheer u kala dhigdhigay arrintan wuxuuna kitaabkiisa qiimaha badan ee zaadulmacaad ku soo guurinayaa tajaarib iyo tusaalooyin noolnool oo isaga iyo khayrkiiba ay arkeen marka laga hadlayo mawduuca ku saabsan isku daaweynta qur'aanka iyo waxtarka muuqda ee uu leeyahay iyo sida saamayntiisa ay uga xoogan tahay daawooyinka intooda kale sheekh casaam abuuyaxya ayaa inoo guud maraya حلي ابن القيم رحمة الله عليه من المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والإسمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته عليه ابن القيم رحمة الله عليه وحكم هذا اللذا دادك بلي آدنكو حتى يكو هالان هذا اللو هالحرالة النقضة أما با ياشا خواسي منافع قارة ياشا
haddii markaa hadalladii makhluuq ay qaarkood ta'hiir yeesheen wuxuu leeyahy maxaad u malaynaysaa bikalaami rabbi alcaalamiin hadalka rabbi tabaaraka wa tacaala hadalka rabbina saynu naqaano wuxuu leeyahay hadallada kale wuxuu uga fadli badan yahay siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala khalqigiisa uu uga fadli badan yahay hadalka alle ee qur-aanka ah waxaa ku jira caafimaad dhammaystiran isma ayaa ku jirto qofka ilaalinaysa waxaa laga helaa nuur iyo hidaayo ayaa laga helaa waxaa laga helaa naxariis guud ayaa laga helaa qur-aanka allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu yahay shay haddii buur lagu soo dejin lahaa buurtaasi ay u burburi lahayd min cadamatii wa jalaalatii weynaantiisa iyo jalaaladiisa awgeed ayay u burburi lahayd haddii markaa qur-aanku uu noqday shay haddii buur lagu soo dejiyo burburin lahaa xanuun kasta iyo jeermis kaste oo qofka ku jira uu burburinaya sidaa darteed nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid isku daaweeya tufta dadkana fara sidoo kalena dhiirogeliya saxaabada marka uu arko iyagoo dadka ku daaweynaya sida ku cad axaadiista ka sugan suubanaha ee inoo sharaxi doono sheekh suldaan moxamed aala moxamed nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa sida caasho ay ka warisay ida shtakaa mina insaanun masaxahu biyamiinihi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa rasuulku haddii uu qof xanuunsado ama naga xanuunsado wuxuu ku masixi jiray gacantiisa isaga oo markaa odhanaya أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشف شفاء لا يغادر سقما وقال حماد لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس إله نبتك حاه بقدتك واشفي أنت الشافي عافمات سي أديك شافيه ولا شفاء غيرك بي لا شفاء إلا شفاؤك عافمات مجر إلا عافمات كاقموياني شفاء لا يغادر سقما شفاء أن كتغين أمر ريبين حنون أن ريبين إله شافي مركا هذا تاقفك وأخرسه أما يسكو أخرده والحمد لله وحاكم إله رسولك صلى الله عليه وسلم سيد البخاري مسلم بأي ورينيان ولا عاشا لك ورينيه كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قضحة أو جرح أما فينان يوحي لميد أي كصبحان أما متقانا مارت داوع سوقارو يوحي لميد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأسبعه فرتي رسولك صلى الله عليه وسلم هكذا ساسو كلا سمينجري هكذا ساسو كلا يريجري سفيان وحديث كورينا أيها متقانا فرتي سوحول ساري سبابة وفرت الله يقان مردسة فرت الدحية سولك ودحيسة تدخل إنها مردسة أما السبابة اللي هذا ومركب متقان أما لا دقالمي أما لا حضلي أما ضدك مارت وحلق الشيء فرت سال له تاج مارت هدي إلهي لو وحيدين فرت لتاجو التحيات كي مركب فرت سال له تاجو أما لا رغاتشيو أيو أنتو ساو قاضي أيو وحساري دولكو ساو ساري عردي أيو وحاولي بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا بسم الله وحنكون بلابا يا مقع الله تربة أرضنا عيد دولك ياغا بريقة بعضنا تفتانك غارك أيو أي متقانا أي تفيان وفرتي دي مركز سوقا دعردي فوضا أساقو تفيسوي مركز عنوفتا سامتقانا عنوفتا يرى متقانا مارتي راعيسا يالا قوضا والمدن waxay ku fasireen farta lafteeda marka uu maaragtay maxay ahayd uu sii wado ay yaakhudhu bariiqi nafsihi ala asbihi asbaba wuxuu ku qaadaya ama uu ku tufaya marka hore fartiisa sababada ah thuma yadacu ala turab wuxuu saaraya dhulka fayardu minhu shay waxa marka soo raaci doona carrada qayb kamida fayamsahu bihi ala almawda aljarih ama meesha caliilka buu saaraya isagoo hadalka marka saa oranay marka haddaad marka hore saarto oo kadib ku tufto iyo haddii aad mataqaana marka hore aad kusii tufto oo aad saa u saarto waa suurtagal marka pointaad ku tiraahdo oo maaragtay sidaan mataqaana marka wax la tufayo loo odhanayo ayaad caradi ku taabanaysa biriiqati bacdina yushfaa bihi saqiimuna markaasa waxaa lagu caafiyayaa kaayaga buka biidni rabbina ilaahay subxaanahu watacaala fasaxadda uu mataqaana maaragtay iyo ilaahay mataqaana idankiisa ilaah baa mataqaana maaragtay un baa wax shaafiya cid kale wax ma shaafiso saasaa markaa waa la odhanaya qur-aanka dhammaantiis ayaa ah daawo mana jiro suurad gaar ahi aayado kooban
oo keligood lagu sheegay daawada waxayna culimmadu sheegeen in minta ku jirta aayadda allah ee ah وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا aysan ahayn tabciidiyo balse ay tahay mid caam ah oo soo gudagelaysa guud ahaan qur-aanka kariimka sidaa darteed qof waliba wuxuu awoodaa inuu isku daaweeyo inta uu garanayo ee qur'aanka ka mid ah suuradda ugu qiimaha badan uguna waxtarka badan waa faatixatulkitaab oo aan dhammaanteen wada naqaanno islamarkaana waxtarkeedu yahay mid awood leh waxaana suuraddan aan wax u dhigma laga soo helin qur'aanka iyo guud ahaanba kutubtii samaawiga ahaa ee ka horreeyey ibnuqayim ayaa fadliga suuraddan si qoto dheer u dul istaagay kuna kala dhigdhigay kitaabkiisa zaadulmacaad sheekh casaam ayaa inoo sharaxaya wuxuu sii kortaa ku sameeyey ibnuqayim raxmatullaahi caleyh suurat alfaatixa soo qur-aanka oo dhan muu noqon daawo sow shay cajiiba oo haddii lagu soo dejiyo burburi lahaa soo muu noqonin haddana faatixada waxay sii leedahay khawaas gaara ayay sii leedahay markaasa wuxuu leeyahy fama dannu bifaatixati alkitaab التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تبارك وتعالى وهي الله والرب والرحمن وإثبات المعاد وذكر التوحيدين إلى آخر ما قال علي أدي قرآن كسان نقضي فاتحة محمد مرنسا فاتحة القرآن كوردن اسكو فوق ستي قرآن كان سورة لم يدكو بجرته towraad iyo injiil iyo zabuurna asalna faatixa kumay jirin marka waxyaalaha khawaasta ay la leedahay waxaa ka mid ah macaanida kutubta loo soo dejiye oo dhan ayay xambaaratay haadihi suura alqasiira waxay shamlisatay inay asmaada ilaahay uu leeyahay ugu waaweyn ay soo dhex galaan allah alrab alraxmaan alraxiim ay soo galaan waxay suuraddu sugaysaa macaadka iyo noqoshada ayay sugaysaa maaliki yowmiddiin ay sugaysaa waxay sugaysaa towxiidka labadiisa nooc towxiid alrububiya iyo towxiid aluluuhiya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa rububiyadii weeyaan iyaaka nacbudna maxay tahay waa towxiidkii uluuhiyadii weeyaan waxay sugaysaa suuraddu waxay sugaysaa in qofka bini'aadanka ilaahay uu u baahan yahay kaalmadiisana uu u baahan yahay wa iyaaka nastaciin waxay sugaysaa suuraddu in ilaahay tabaaraka wa tacaala suuradda dhexdeeda oo ku khaas yeelay dadka inay ilaah alla ka dalbadaan hidaayo ay ka dalbadaan afdalu ducaana ay ku ducaystaan waa tee ihdina asiraata almustaqiim weeyaan waa hidaayada lagu hanuunaayo jidka toosan ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku hanuuniyey dadku alla tabaaraka wa tacaala uu u nicmeeyey wuxuu leeyahay marka ibnuqayim raxmatullaahi caleyh markii lasoo duuduubo وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفيض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية والكافية اسكو soo duuduubo suuraddu waxa ku jirta maxay daawo nooc ugu badan ayaa ku jirta waxaynu isweydiiyeen meesha daawada ay ku jirtaa waa halkee waxa uu leeyahay ibn qayyim culimada qaar waxa laga soo naqliyay mawdicu ruqya fiiha inay tahay iyyaka nacbudu wa iyyaka nastaciin inay tahay labada shayna maxay tahay labada kelmadood waxa ku jirta maxaa la dhahdaa aqwa ajzaa ad-dawa ayaa ku jirta sababtu maxay tahay qofkani allah tabaaraka wa tacaala markuu addoonnimadiisii ogolaaday ayuu haddana allah tabaaraka wa tacaala isku dhiibay iyaaka nacbudu macneed maxay tahay addoon dhabaanay macna cid kaloo addoon u ahayna haba yaraatee ma jirto haddana wa iyaaka nastaciin cid kaloo kaalma aan weydiisanayna haba yaraatee ma jirto wasaa'isha ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu caabudana waxaa ugu fadli badan isticaanada cibaadaduna waa shay ilaahay tabaaraka wa tacaala oo iska laha markaas ibn qayyim raxmatullahi calayh wuxuu ka sheekeeyey qisa isaga ku dhacday uu ka sheekeeyey wuxuu leeyahy walaqad mara bii waqtun bimaka saqimtu fiihi wafaqadtu altabiiba waddawaa fakuntu atacaalaju biha wuxuu leeyahay waxay soo marta aniga lafteeda waqtiyada ka mida
oo aan magaalada maka aan ku xanuunsaday dhakhtarna waan waayey daawana magaalada waan ka waayey faatixadaan isku daaweyn jiray wuu leey sideen markaa faatixada isugu daaweyn jiray wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh aakhudu sharbatan min maa'i zamzam وأقرأها عليه مرارا ثم أشربه فوجدته بذلك البرء التام ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع حولي هاي waxaan soo qaadan jiray waxoogaa biyo oo zamzama soo qaadan jiray kadibna faatixada ayaan ku akhrin jiray kadibna waan cabi jiray ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala i caafiyey markii dambena wuxuu leeyahy aan maka ka laabtayna qofka soo xanuunsanaya biyo zamzam u raadin jiray faatixana waan ugu akhrin jiray waana ku daaweyn jiray waana ku caafimaadi jiray haakadaa saasay markaa faatixada u tahay shay qofku isku daaweeyo ay u tahay 7 jeer oo kale isku akhrinaya sida fii bacdi الآثار كسارتي إن شاء الله يتعافى ابن حجر الله ha u naxariistay wuxuu yidhi culimmada muslimiintu waxay isku waafaqeen inay bannaan tahay tufta haddii ay kulansato shuruudda saddexda ah ee kale ah kow in ay tahay kalaamka allah subxaanahu wa tacaala amba asmaa'diisa iyo sifaadkiisa laba in lagu akhriyo luqadda carabiga ah iyo tan saddexaad oo ah in la ictiqaado in aysan darteed saamayn lahayn balse wax ku asiibo daatada allah subxaanahu wa tacaala kutubta sunanka ah waxaa ku soo arooray axaadiis cadadkeeda aan la soo koobi karin oo ka warramaya isku daaweynta kalaamka allah iyo adkaarta ka sugnaatay suubanaha waa kan sheekh cusmaan dacwo oo inoo guud maraya qayb ka mid ah axaadiistaas diinteenna iyo khayrka ku jira maaragtay waa cajiib bal xadiiskan bukhaari muslim uu wariyey sacad ibn abi waqaas radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi tashakaytu bimaka maka ayaan ku xanuunsaday shagwan shadiida xanuun aad u daran nebi maxamed baa yimi isagoo i booqanaya faqultu waxaan ku yidhi yaa nebiyullah nebi allow innii atruku maalan xoolaan ka tegayaa wa innii lam atruk ilaa ibnatan waaxida hal gabadhun baan ka tegayaa waa carruura fa uusii ii dardaaran biuluay maali xoolahayga marka 3 meelood loo qaybiyo 2 meelood inaan sadaqaysto oo wa atruku uluna aan ka tago qayb aan ka tago labana sadaqaysto qaala laa maya buu yidhi qultu waxaan ku yidhi فأوصي إيدر دارن بالنسبة حولاي أنا كالبرو برسا دقيستو وأترك النسبة بدنا أنكتك قال لا مايا قلت وعن كل فأوصي إيدر دارن بثلث وأترك لها ثلثين قبلنا إن المركة أقتك ولا بقى يبوت قال وحي الثلث ثلثها والثلث كثير ولما الثلث وابديا ثم دبيدنا وضع يده النبي محمد وحو قعنتي سساري على جبتي هلكا جبهدي سرفورك هلكا مارتي سلانتي وجهك ثم مسح يده دبيدنا قعنتيس بكون مسحي على وجهي وسعد بن أبي وقاص وبدني يا عروشي ثم قال دبيدنا وحيدي اللهم اشفي سعدا إله السعد عاف ماضي وآتم له هجرته هجرتي ومككسها هجرنا إله أولا ما يستم فما زلت بوجري سعد كمسؤول أجد إن أنهليو برده نبي محمد قعنتي ويقص على هلك صلانتك وجهك إن أنكيريو قعنتي قبو كذا على كبدي بيركيغا بخاري مسلم حينحوض وحكوسه حديث صاحب ولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كان صاحب رضي الله عنه قال وحيدي ذهبت بي خالتي هبريرتي بايك حيسي إلى رسول الله رسولك ألا يجيسي فقالت واحد يا رسول الله رسولك الله ابن أختي ويلك ولا شيء لا شيء وجع وحنسيها فمسح راسي مدحي أيوه مسحي ودعا لي بالبركة بركنا ويقول العلم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay xalqadan oo ahayd xalqadii afraad ee barnaamijkan ugu magac darnay islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan diiradda ku saarnay ahmiyadda mudnaanta iyo tixgelinta iyo diinta islaamku siisay caafimaadka bini'aadamka insha allah waxaan xalqada xigta ku soo gudbin doonnaa waxtarka ay tufta iyo ducada u leedahay bukaannada kadibna isha qabitinka iyo sixirka kulanti dambe iyo xalqada xigta ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به
به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع